بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta waxaan rabaa hadalkeena inaan kusoo qaato mowduuc actual ah oo hadda xaaliyan la joogo oo dan u ah dhammaan dadka qurbaha ku nool iyo in the long run-na dhammaan ummadda Soomaaliyeed maxaa yeelay haddii guul dadka Soomaaliyeed ee ku nool wadamada dibadda ay guul soo hiyaan hadday shaqaystaan oo horumar ay gaaraan hadday caqli fiican caafimaad iyo aragtay nolol wanaagsan iyo lacag ay helaan waxay saameyn ku leedahay ehelkooda jooga wadanka marka automatically waxay saameyn ku yeelanaysaa xaaladaha ka jira wadanka marka nolosha oo dhan ayaa isku xiran adduunyada oo dhan ayaa isku wada xiran marka lama dhihi karo wadan ka go-an wadamada kale adduunyada marayo dhan marka xaaladda maanta waxyaabo badan ayaa jira laakiin tan raba aan focus inaan saaro waxay tahay maanta doorashooyinka ka dhaca wadamada Soomaalida ay u badan tahay oo dhan ay qaxooti ku yihiin ama ay degan yihiin Soomaalida laba nooc ay kala baxaan dad aaminsan in ay markii 90kii la soo kacay 85 ilaa 90 markii qaxooti la soo noqday dad aaminsanaa weligoodba inay yihiin marti ku yihiin wadamadan ay magaalyo weydiisteen oo marka ay albaabka taagnaadaan oo wax walba wixii dhaqanka iyo diinta iyo wadanka shaqo ku leh oo dhan aysan faraha la gelin oo ay ku sii sugaan wadankooda iyo dad aaminsan ayagoo wadankooda sii sugaya inay haddana ka qayb qaataan horumarka wadanka ka jira inay bartaan ayo kaliya inay iska ilaashadaan oo diintooda oo ah wax muqadas oo aan la bedeli karin anigu waxaan taageersanahay oo aaminsanahay inay muhiim tahay qaybta labaad oo ah in wadanka aad ku nooshahay inaad ka qayb gashid oo aad la walaalo noqotid wax la qaybsatid fikrado ka faa'iideysatid adigana aad u faa'iidid xitaa dadka jecel diintooda inay fidiyaan ama raba inay arkaan Mareykan iyo Yurub oo dhan diinta islaamka guurka qaatay waxaad ogaataa in ay ku xiran tahay adiga inay kugu xiran tahay hadba sida aad dadka u dhex gasho haddii aad noqoto qof siflabood ah oo dadka oo dhan u kala qaybiyay idinka iyo anaga marka albaabkii ayaad xirtay marka mabdii fiicnaa iyo diintii fiicnad ah haysatay lama ogaan karo inay fiican tahay marka lagu soo raaci karo laakiin haddii aad noqoto qof albaabka furay asagoo isdifaacaya dadkii dhexgalay bartay wax walba la qaybsaday dhib iyo dheef marka waxaa laga yaabaa in walaaltinimada idinka dhalatay inay keento in laga faa'iideysto kadibna xataa diintaadii la barto oo la soo galo marka dadka waxaan leeyahay marka maadaama doorashooyin badan ay ka dhacaan qaas ahaan hadda 9 bisha September waxaan ugu soo socdaa dalka Sweden doorasho muhiim u ah marka dadka labada nooca maragtay mabda'ayga amisan oo jecel inay qayb ka qaataan waa gooni laakiin dadka kale ayaan rabaa inaan u sheego fariin oo aan tuso in adduunyada wax walba waa la iska dhaadhiciyaa macangagnimada ma fiicna oo haddii wax laga dhaadhiciyo waxa muhiim ah inaad qaadato haddii laga fiican yahay haddii adiga aad fiican tahay inaad dadkii soo jiidato marka waxaan iska dhaadhicinaynaa muhiim ah maanta sababta ay muhiim u tahay adiga waxa aad jeceshahay diintaadii inaad wax u qabato dhaqankaaga inaad ilaashato iyo inaad horumar gaarto haddana inaad ku keeni karto adigoo doorashooyinka ka qayb gala adigoo dadkan la saaxiiba dadkan barta dhaqankooda maxay dhahaan afkooda marka ugu horeysa afka haddaad barato wadanka maragtay afka Swedishka ama meesha aad joogto Danish hadduu yahay iyo Norwegian marka haddii afka aad barato dadkii waa soo dhawaatay waxaad ogaatay waxyaabaha ay ku mashquulsan waxyaabaha ay jecel yihiin waxyaabaha dhibaya marka aad la saaxiib noqoto aad ogaatana waxaa imaanaysaa inaad ka shaqaysato oo ayaga wax alla sidii ay la qaybsato haddii qaldan yihiinna inaad u keento nidaam fiican iyo diin fiican iyo madab fiican afka marka waa muhiim tan labaadna waxa waaye doorashooyinka ka dhacay siyaasadda marka hore in laga qayb qaato waa wax aad horumar lagu gaarayo qof walba oo xaq u leh inuu ka qayb qaato codkiisa waa inuu marka ka faa'iideystaa sababta aan leeyahay waxa waaye waa muhiimna waxay tahay faa'iido ku leedahay waxa waaye tusaale ahaan xisbiyo badan ka jira wadamada dimuqraadiyada xisbi walba wuxuu leeyahay himilooyin oo rabo inuu gaaro mala socota in himilooyinka meesha ku qoran haddii aadan ogeyn xisbi walba muxuu u taagan yahay wuxuu qiimeeyo waxa uu hana qaadayo oo rabo inuu gaaro haddii aadan la soconin waxaa laga yaabaa kan raba adiga in lagu baabi'iyo iyo kan korkuu qaaday inaadan kala ogaanin marka waxaa muhiim ah xisbi walba in aad barato wadanka aad ku nooshahay siyaabaha u shaqeeyaan iyo waxyaabaha ay jecel yihiin iyo hadafka siyaasadooda waxay tahay
kadibna in aad ogaato inay jiraan xisbiyo ku salaysan cunsuriyiin. dalkan oo kale waxaa jira xisbi lagu aasaaskiisoo dhanba uu ahaa in sidii dadka ajnabiga ah sideedoo kale adigoo kale soomaali ha noqdo ama ajnabi ha noqdo inaysan waddankan ku badanin iyo inaysan waddankan saameyn ku yeelanin iyo in laga hortago iyo guud ahaana naceeb u qaba dadka ajnabiga gaar ahaana dadka muslimiinta. marka xisbigaas oo kale haddii aadan ogeyn ama aadan si aad maaragtay doorashooyinka ka qayb qaadanin waxaa si indirectly ah garab u siisay xisbigii cunsuriga ahaa. tusaale ahaan mathalan ba haddii maxay dhahaan populationka waddankan uu yahay 10 milyan adigana aad ku jirto dadka ajnabiga ahna ay yihiin 500,000 ama soomaalida 50,000 ilaa 60,000 70,000 ayaa lagu tiriyaa. 70,000 haddii ay xisbiyaduna ay isqabsadaan oo doorasho weyn ay dhacdo, doorashadii marka hadday barbardhac ay timaado 50,000 ee guriga jiifi aan shalay codeyna haddii ay go-aan ku gaaraan inay codeeyaan meeshii ay raacaan ayaa guuleysan kara xisbiyadii cunsuriyiinta markaa